shantii maalmood ee na weydaartay xaaladda dagaalada Itoobiya ayaa u muuqatay inay furimuhu ka yara nasteen dhawaaqa madaafiicda iyo hugunka dirirta laakiin 24kii saac ee la soo dhaafay mar kale dhinacyadu waxa ay tabinayaan bilowga dagaal culus xilli ay wali socdaan geedi socodka wada hadallo hoosaadyada ay darafyada dagaalamaya u kala warqaadayaan reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo ay weheliyaan Jarmalka iyo xubno ka socda midowga Yurub warbaahinta Amxaaradu waxa ay warinaysaa in 24kii saac ee la soo dhaafay ay dhaceen dagaalo culus oo ay qayb ka noqdeen diyaaradaha dagaalka Itoobiya taas oo ay sheegeen in dib loogu caabiyay TPLF sida ay sheegteen maamulka Amxaarada hadalhayeeno u hadlay laakiin Tigreegu kama hadlin ruwaanshaha xogta Amxaarada Giise Jow Mulena oo ah wasiir warfaafineedka Amxaarada waxa uu sheegayaa in duqeymo culus ay ka dhaceen Kooba Rabit oo alamaata u jirta 45 kilomitir waxa uu sheegay in 3 gaas ay burburiyeen ma sahlana in si fudud loo aqbalo sheegashada Major General Maselle oo ah taliyaha ciidamada Itoobiya ee galbeedku waxa uu sheegay dagaalyahano ka tirsan ciidankiisa oo uu la hadlay inay u diyaar garoobaan in la qaado howlgal uu sheegay in lagu soo celinayo sharciga iyo kala dambeynta sida lagu qoray barta gaarka ee Amhara Media afayeen u hadlay TPLF ayaa sheegay dhankiisa laba hamayn ka hor war u muuqday inaysan ciidamadoodu ka gudbi doonin goobaha ay qabsadeen ee xuduudda ay isku hayaan Amxaarada wuxuu tilmaamay inaysan u soconin duulaan iyo layn shacab sida uu hadalka u dhigay isagoo saaxiibadiisii hore ee Addis Ababa ku sifeeyay kuwa shacabka laaya isla markaana ficilo xun geysta dadaalada caalamiga dhankooda waxa isgarab socda dhowr dadaalkan ugu muhiimsan waa kan ay wadaan reer galbeedka waa in la helo wada hadal rasmi oo siyaasadeed xabadda la joojiyo jidadka gargaarka la furo taasoo ka dhigan inay noqon doonto halka rasmiga ee xaaladdu ay ku dambeyn doonto haddii aysan diidmo kala kulin darafyada xubno sare oo ka socda Mareykanka ayna ka mid yihiin CIA-da ayaa tagaya Itoobiya waxa ay doonayaan inay u gudbaan Maqalle oo ay ogolaato Addis Ababa safarkooda iyadoo lagu hoos qarinayo in xubnahan ka socda hay'adaha gargaarka ee Mareykanka balse ay tahay dhacdo weyn oo wada hadalsiinta la xiriirta ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa u sheegay dhawaan wakiilada caalamiga ah inay dhankooda diyaar u yihiin wada hadal iyo xal waara oo xabadda lagu joojinayo laakiin Itoobiyaanka islaynaya oo isyaqaan awgeed waxay leeyihiin wali dhinacyadu uma bislaanin inay miiska wada xaajooyada tagaan ama aqbalaan runta taalla masraxa dagaalka shuruudaha dhinaceeda ay soo qadintay TPLF ayaa ahaa kuwa aan sahlanayn in wada rahaan loo aqbalo laakiin qodobada ugu waaweyn ayaa noqonaya kuwa ay wada xaajooyadu ku furmi karaan ayay leeyihiin dadka la socda xaaladda Itoobiya gaar ahaan in la fasaxo adeegyada dawliga ah xanibaadaha saaran iyo jidadka gargaarka Cornel Abiy Ahmed oo mar kulna loonayay inuu maamulo Itoobiya sanooyin dheer marna loogu yeeri jiray boqorka cusub ee Itoobiyaanimadu biyo dhigtay hadda waxa uu wali qoraa in barwaaqo iyo cagaar laga dhigi doono Itoobiya isbedel xagga cimilada ayaa muuqda laakiin kama dhigna mid ka yimid xagga cagaarinta Abiy iyo saaxiibadiisu sida ay jeclaan lahaayeen si joogitaanka xafiiska ku yaala kilomitir 4 Addis Ababa ee Abiy Ahmed ayaa sii dhamaanaysa ay leeyihiin dadka hilaadinaya xaaladda Itoobiya reer galbeedka ayaa u arkan in aysan hadda aaminaad iyaga dhex mari karin dhankoodana oo ay tahay inay karkaarka weydaariyaan ayagoo si weyn uga dhaxarka faraha Ruushka iyo Shiinaha oo aan qarsoodi ahayn xaaladda Itoobiya siyaabo kala duwan ayay isku bedelaysaa marba marxalad iyo nooc gaar ah ayay tagaysaa laakiin walwal weyn ayaa hadda laga qabaa in ugu dambeyn ay salka dhulka ku dhufsato taasoo muddo dheer digniinaheedu ay soo baxayeen Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culumta kale Islaamka